lagu xusayay xuska maalinta xanuunka HIV/AIDS-ka oo guud ahaanba caalamka laga xuso 1 bisha Diseembar ayaa lagu qabtay Hotel Berbera Beach ee magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil. Munaasabaddan oo soo qabanqaabisay hay'adda Bisha Cas iyo sidoo kale komishanka ka hortagga xanuunka HIV/AIDS-ka ee Solna ee gobolka Saaxil ayaa waxa ugu horreyn hadal ka soo jeedisay isla markaana ka warbixisay maalintan iyo muhiimadda ay leedahay isuduwaha komishanka xakamaynta HIV/AIDS-ka ee gobolka Saaxil iyo ka shaqaynta caafimaadka bulshada gaar ahaan xanuunkan iyo in qofkii bini'aadanka laga badbaadiyo lagana hortago qaababka xanuunku ku iman karo iyo in la ilaaliyo qofka xanuunka uu asiibay uu ku dhacay oo loo ilaalinayo dhinacyo kasta oo noloshiisa ka mid ah aad baad u mahadsantihiin runtii quruxda badan leed u soo ajiibteen anaga iyo maanta qolada Bisha Casba waxaanu aanu halkan ka qabanaynay xafladda tan oo aan rajaynayo inay fariintani maanta halkay gaari jirtay iyadoo aan wacyigelin badan qaban jirnay sanad kaste tan waxa loo asteeyay inay wacyigelintani mid ka ballaaran noqoto. sidoo kale waxaa halkaasi hadal ka soo jeediyey madaxa hay'adda Bisha Cas ee gobolka Saaxil iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee gobolka Saaxil oo ku dheeraaday maalintan iyo ahmiyadda ay leedahay. marka arrintan maanta loo fadhiyo de isaga sheekayn mayno isuduwaha xakamaynta maxay xanuunkanna way idinka warantay iminka waxa weeyaan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad bahalkani markii uu soo baxay 80aadkii bay ahayd marka abayaashin baa jiray bariga waxa la isku haysan jiray oo la oran jiray waxa weeyaan galbeedka iyo bariga ama Ruushka iyo Mareykanka oo Ruushka bariga xoog leh ayaa Ruushku wuxuu ku eedeyn jiray Mareykanka wuxuu oran jiray Pentagonka waa xanuuno ay ka baxsay waxba la oran jiray markay ka soo waaday waxaynu oran jiray xanuunkaas waa xanuun aan ku dhicin muslimka way ka soo waaday waxaanu hubaa ayaan xusuustaa nin gobolladeena Soomaaliland meel kamida ayaa ninkii oo horeeyay cadeeyay waran xanuunkaasaan qabaa dabadna faala yar buu bixiyo aad aan ugu qoslo oo runtii ah mid caqli gal aad iyo aad si dadka ugu sheegay wuxuu hadii waxaan idin sheegayaa hadii gurigaaga aad ku jirto oo ma soo galo aad aragto mas dhex taagan ma waxaad oranaysaa war masku xagu ka soo galay baad ayaan isku qabsanayna mise baalkaas sidaynu isaga saar lahayn ama isaga dili lahayn macnaha waxa weeyaan xanuunku wuu jiraa waa joogaa haduu dhaco de sidii waxa laga hadlayaa sidii ama la isaga badbaadin lahaa ama qofku ku dhacay loo daryeeli lahaa taa ku noqon mayno wuxuu baan anigu idin sheegayaa xanuunkaas iyo xanuunada kale ee imika soo kordhayba waa calaamadaha qiyaamaha ee hore loogu sii sheegay ama waqtiga samaanku xaqir samaanku markuu soo dhawaado waxa kalena kama dhacaan waxa soo dhan waxay ka dhashaan waxa bini aadamku geysto dahar al-fasad fi al-barri wal-bahri bima kasabat aydi an-nas wax allaala waxa dhacaya caalamka aynu ku dhacayno waxa weeyaan waa waxa bini aadamku geysanaya hadaba waxa weeyaan waxaan anigu idin sheegay dhalinyaradiinan hablayo inaba leh baalka birta ay hor taagan markii nin baa sameeyay tan la isku eegayna nin baa sameeyay ninkii sameeyay markuu sameeyay warqad buug buu soo raaciyay inta leego waxa la catalog balay waxa laga eega ama laga jeegareystaa baalka shuruudihiisa qaabka loo isticmaalayo sidoo wuxuu noqdo haduu yar xumaado sida loo hagaajiyo dad caadi oo nolol noolaan karaya marka waa maalin caalamka dhan laga xuso runtii muhiimadu ay tahay ka hortagga xanuunkan faafaya ee HIV/AIDS-ka marka sida guud loo eegay caalamka tiro lagu qiyaasay 80 qof 80 milyan oo caalamka ku kala daadsan ayaa xanuunkan haya sida marka la eego wadada marka sida kale la eegana 80 milyan ayaa u dhintay sida ay sheegay warbixinu marka taas waxay sheegaysaa in wadanka Soomaaliya kamid ah Soomaaliland kamid tahay gobolka Saaxil kamid tahay ay u baahan yihiin in dadka la siiyo wacyigelin ballaaran. gabagabadii waxaa halkaasi hadal ka soo jeediyey agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose magaalada Berbera Xasan Cabdi Cali waxaana uu ku dheeraaday sidii loo xakamayn lahaa xanuunkani isla markaana looga wacyigelin lahaa bulshada ku nool magaalada Berbera iyo guud ahaan Soomaaliland ba waxaan bay ku soo ururtaa waa saddex arrimood kow sida uu sheegay Xuseen bal in dib la isu xasuusiyo oo lala dareen noqdo dadkaasi xanuunkaasi asiibay oo Ilaahay u qadiray isla markaana aan la faquuqin la soo dhaweeyo wixii la taakulayn karo ama la tari karana la taro oo bulshadeena ka mid yihiin ay qaybta ka ahaadaan oo ma aragtay maadaama ay jiraan siyaabaha uu ku gudbaya inay kaga duwan yihiin xanuuno fara badan oo jira
oo fiditaankoodii iyo gudbitaankoodiiba uu ka fudud yahay in dadkaasi loo muujiyo naxariis loo muujiyo la soo dhaweeyo shaqadii aan lagu faquuqin maxay ahaydey mucaamalaadkii kale ee bulshada dhexdeeda aan lagu faquuqin kaasi waa qodob qodobka labaadna waxa weeyaan inaynu de waxa weey qofku markuu xanuunsanayo xanuunku doonaba ha qabee waxa laga yaabaa tamartiisii iyo fikirkiisii iyo wax fara badani inuu hoos u dhac ku imanayo therefore wuxuu u baahan yahay qofkaasi in la garab qabto marka kuwa ugu mudan maanta in la garab qabtana ee qayb bay ka yihiin runtii taasina waa mid qodobka saddexaadna waxa weeyaan in laga wacyigeliyo bulshada faafitaankiisii si loo joojiyo in laga wacyigeliyo oo wasaa'ilkii faraha badnaa ee wax lagu wacyigelin jiray ama ha noqoto in ummadda wax loo soo bandhigo ama ummadda wax loo sheego ama miidiyaha lagala hadlo ama kulamo noocan oo kale la qabto in iyadana maad aragtay ay noqoto wacyigelintuna waxa ugu weyn ee aynu ka hortag ku samayn karno runtii magaaladeena berberi way ka duwan tahay gobollo kale iyo magaalooyin kaleba runtii marka loo eego xuduudaha inagu waxaan leenahay 3 xuduudood oo 3 xuduudoodba laga soo gali karo madaaradii way shaqeynayaan oo de madaarkii waa tahada uu shaqeynayo dabcan wax dadku way ka soo gali karaan iyagoo meelo kale ka yimi dekadii iyo badii de waa furan yihiin oo waad ogtihiin oo de waxa weeyaan ganacsigii socodkii iyo bulshooyinkii kale ee aynu xiriirka la lahayn iyaguna waa soconaya Faysal Aadan Ismaaciil telefishinka qaranka Soomaaliland